nabadgelyo. Ma ogtahay in rag Soomaaliyeed iyo dumar Soomaaliyeedba ay ka shaqo bilaabeen kooxda shabakada ah ee dadka Soomaaliyeed ku dhaca online-ka kana duuba muuqaalada qaawnida haddii jawaabtaadu ay tahay maya waxaad ku jirtaa halis ka culustii hore ay idinkaga dignay balse marka hore muuqaalkan leegsaar lana wadaag saaxiibadaada kugu xiran kooxdan oo ah rag ajaaniba ayaa qorshahoodii hore bedelay kadib markii ay ogaadeen in bulshada Soomaaliyeed si sahlan lagu dayi karo waxay shaqo geliyeen wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo ay ku soo xiragashtaan dadka ay doonayaan inay muuqaalada kaata ka duubtaan marka hore qof cadaana ayaa ka soo wici jiray Facebook balse hadda sheekadu waxay u digan rogotay dhanka iyo WhatsApp-ka halkaas oo laga soo weerarayo adiga oo aan dareen qabin markan waxaan baaraynaa oo aan isku dayaynaa inaan ogaano mas'uulka ugu weyn ee shabakadan ee Soomaaliga ah dhowr dumar ayaa inoo soo gudbiyay ciwaankan waxaana doonaynaa in aan markan shaaca ka qaadno si ay ugu baraarugaan dhalinta Soomaaliyeed ciwaankan waxa uu ku soo galaa Facebook Cumar Taajir ma doonayno in qof kale oo magacan leh ay saameyn ku yeelato sidaas aawadeed somadiisa oo sawir ah ayaan idinla wadaagaynaa markan si lamida gabdhaha ayaa iyaguna loo diraa wiilal Soomaaliyeed sida inoo sharaxaysa gabadhan oo codsatay in magaceeda aan qarino Assalamu alaykum waxaan ahay gabar Soomaaliyeed walaal waxaan ku la soo xiriiray in aan arrin ku sheego wiilaa wuxuu la soo xiriiray Facebook wuxuuna soo helay WhatsApp-kayga xiriir kadib wuxuu ii soo diray muuqaalo iyo fiidiyoyaal anshaxuma ah waxaan rabay inaan la wadaago gabdhaha kale oo Soomaaliyeed adigana u gudbisid يعني عشحمو يموقالو عمركاس لو جوجين يو وحيابا يعني أكن كوفينين ربا إنو فيديو يالي كتوبو بعدين بلوغ عن ساري قبتها Soomaaliyeed نوحا وديها رقا نوحا سوكاليتا kooxdan wiilasha iyo gabdhaha Soomaalida ay shaqo galiyeen waxay u qaabilsan yihiin inay soo xirigeliyaan dhalinyarada waxay kala hadlayaan messenger-ka ama WhatsApp-ka iyaga oo af Soomaali kuula hadlaya marka aad isfahantaan oo aad u moodo qof daacada ayay muuqaal ka duubanayaan waa sida ay rabeen kadibna waxa bilaabanaysa in la warkaateeyo haddii aad lacagta iska bixin weysana bulshadaadii lagu waceebeeyo ninkan wuxuu hayaa sheeko cajiib ah oo qiiro badan oo qof walba oo Soomaaliyeed ku dhici karto balse asaga markii hore wax ku dhacay yani dikaga hormarin isaga ayaa la wadaagi doona waxyaabaha cajiibka ah oo la kulmay halkan waxa degan wiilka dhalinyarada ah ee nala soo xiriiray ee rabo inuu nala wadaago sheekadiisa ku saabsan in qof dumar oo Soomaaliya loo isticmaalay kadibna laga qaatay lacag xad بس أدي والله سوى بس أدي أريد شيطان إقاضي أدي والي قدوب أنا وقابل حبنتي ترنكي بي ساس ما كان تلافون قدامي أنا مسكو شرب إنا قبستو جروب كي وحكوستو شركة رئيس السبيل كي فيديو قتك دادك جروب كي أركيني لكن أنا اللي أركايو شان بقولهم كسي كران دا أدي واسكتو توغي مركب دانبين دا أسكو قبتي وان بحي العقد أوتر Soomaalidu waxay tiraahdaa nin ku digay kuma dilin marka adiga laga maqan yahay walaalka ayaa lagu maqan yahay ee fariinta u gudbi ha ku tusaale qaatay